Sean Lemens oo sharaxay sababta uu ugu biiray Manchester United. Goolaha cusub ee Manchester United Sean Lemens ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay heshiiska uu kaga yimid Royal Antwerp. Goolahayahan 23 jirka ah ayaa yiri, aad baan ugu faanayaa inaan ku biiro Manchester United. Waa riyo ii rimooday. Sanadihii la soo dhaafay waxay ahaayeen safar cajiib ah. Waxaana rajaynayaa inay tani noqoto bilow gaar ah. Lemens ayaa intaa ku daray inuu dareemayo jawi wanaagsan oo kooxda ka jira, isagoo ballan qaaday inuu door muuqda ku yeelan doono United sanadaha soo socda, isla markaana uu ku sii horumarin doono xirfadiisa Old Trafford. Lemens ayaa loo arkaa goolahayaha bedeli doono Andre Onana oo marar badan ku fashilmay goolka United. Lemens waxaa la aaminsan yahay inuu wax badan ka tiri doono dhibaatada goolhaya ee United. dhinaca kalena Pedri oo banaanka keenay dhacdo fool xun oo uu kala kulmay maamulka Real Madrid. Real Madrid way iga ceerisay xerada Valdebebas. Xidiga qadka dhexe ee Barcelona Pedri ayaa wareysi furan siiyay Onda Cero, isagoo ka hadlay dhacdooyin muhiim ah oo xirfadiisa ku saabsan iyo booskiisa haatan ee kooxda iyo xulka Spain. Waxay ku saabsaneyd tijaabadii Real Madrid. Waxay weydiiyeen su'aalo badan. Tijaabadii aan ku maray Valdebebas, qof aan aqoon inuu ka tirsanaa kooxda iyo in kale ayaa igu yiri, weli heer aad noogu ciyaarto maadan gaarin. Sidaas ayaana guriga ugu noqday. Ma aqriyo dhaleeceynta, balse had iyo jeer way ii soo gaartaa. Marka aad dhaawacan tahay oo niyad jabsan tahay, waa marka ay dadka sugayaan inay ku weeraraan. Dhibaato waxay noqotaa marka qof ku qoro baraha bulshada arrimahaaga, dadka kalena ay rumaystaan oo ay kugu maadsadaan. Way kaa caraysiinaysaa maxaa yeelay waa wax been ah. Ma awoodid inaad wax walba beeniso. Waxa ugu fiican waa inaad degenaansho muujiso, si adag aad u shaqeyso oo aamusiiso kuwa ku dhaleeceynaya. Waan ku raaxaystaa doorka aan ka ciyaaro Spain, laakiin tababare Luis de la Fuente wuxuu dhowr jeer ii sheegay inuu doonayo inuu arko aniga oo qadka dhexe weerarka ka ciyaaraya. Waxaan isku dayayaa inaan sameeyo waxa ugu fiican, go'aankiisa ayaan ku qanacsanahay. Warbixintan waxay qayb ka ahayd barnaamijkeennii bandhigga ciyaaraha oo aan mar walba uga hadlo wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta iyo caalamka. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkan la soo gaartay, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena aad sii share gareyso. Haddii aad nagu cusub tahay, nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.